tixgelinayna baahida weyn ee loo qabo ilaalinta maareynta iyo in si joogto ah looga faa'iideysto khayraadka kalluunka badda annagoo aqoonsan muhiimadda ay leedahay in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ay heshiis ka gaaraan dakhliga kalluumaysiga markaan aragnay baahida loo qabo in ilihii dhaqaalaha dalka dib loo soo nooleeyo si ay dowladda ugu suurto gasho inay ku filaato bixinta kharashyada sugidda amniga iyo dibudhiska waddanka oo ay ugu muhiimsan yihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka markaan aragnay baahida loo qabo in si cadaalad ah oo daahfuran loo maamulo dakhliga kalluumaysiga markaan aragnay qodobka 52 ee dastuurka ku-meel gaarka ah oo qeexaya in awoodaha iyo dakhliga khayraadka ay ka wada xaajoonayaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka markaan aragnay qodobka 14aad ee sharciga kalluumaysiga Soomaaliya ee soo baxay 2014 kuna saabsan ruqsadaha kalluumaysiga markaan tixgelinay danta guud ee dalka iyo dadka waxaan ku heshiinay qodobada soo socda qodobka koowaad dhinacyada heshiiska waxaa heshiiskan wada gaaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir qodobka labaad bixinta ruqsadaha kalluumaysiga wixii ka sareeya 24 nautical miles ee aaga dhaqaalaha ee EEZ waxaa u xilsaaran dowladda federaalka ah oo ay mas'uul uga tahay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda bixinta ruqsadaha wixii ku eg 24 nautical miles waxaa u xilsaaran dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka c wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee federaalka waxay wakiil ku yeelanaysaa caasimadda dowlad goboleedyada si ay u fududeeyaan soo gudbinta macluumaadka la xiriira bixinta ruqsadaha kalluumaysiga iyadoo la tixgelinayo habraacyada u degsan ruqsad bixinta waafaqsanna sharciga kalluumaysiga Soomaaliya qiimaha curaarta ee ruqsad bixinta kalluumaysiga waxaa lagu salaynayaa nooca kalluunka iyo muddada ruqsadda oo uu codsaduhu soo weydiistay iyadoo la tixgelinayo tartanka sayladaha ee qiimaha bixinta ruqsadaha habraaca qiimaha ruqsad bixinta iyo macluumaadka codsiga kalluumaysiga waxaa loo raacayaa heerka caalamiga ah ee codsiga ruqsadaha kalluumaysiga International Standard of Application for Fishing Licenses ee ku lifaaqan heshiiskan qodobka saddexaad hay'adda kalluumaysiga Soomaaliyeed waxaa la abuurayaa hay'adda kalluumaysiga Soomaaliyeed Somali Fisheries Authority oo mas'uul ka ah ilaalinta kalluumaysiga Soomaaliyeed hay'addaas waxaa gudoominaya wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee federaalka waxaana xubno ka ah wasiirada kalluumaysiga dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka xilka iyo waajibaadka hay'adda kalluumaysiga Soomaaliyeed waxaa soo saaraya guddiga amniga qaranka oo ka kooban madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir qodobka afraad kaydinta iyo maamulidda dakhliga ka soo xarooda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dakhliga ka soo xarooda ruqsadaha kalluumaysiga waxaa lagu kaydinayaa xisaab gaar ah oo laga furi doono bankiga dhexe ee Soomaaliya qodobka shanaad qaybsiga iyo ujeedooyinka loo isticmaalayo dakhliga qaybsiga iyo ujeedooyinka isticmaalka dakhliga ka soo xarooda kalluumaysiga waxaa go'aan ka gaaraya guddi ka kooban madaxweynaha dowladda federaalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo madaxweynayaasha dowladaha xubinta ka ah dowladda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyadoo mudnaan gaar ah la siin doono arrimaha amniga iyo dib u heshiisiinta dalka qodobka lixaad habka maamulka xisaabta hanaanka maamulka xisaabta dakhliga kalluumaysiga ee ka furan bankiga dhexe ee Soomaaliya waxaa loo raacayaa hanaanka maaliyadeed ee dalka u degsan ee loo yaqaan hab maamulka xisaabaadka Public Financial Management waxaa xisaabta lacag looga saari karaa amarka guddiga madaxda fulinta dowladda federaalka ah
iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir iyadoo amarka lacag bixinta uu digreeto ku soo saarayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. C. wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka oo u xilsaaran soo xiraynta dakhliga iyo bixinta kharashaadka waa in ay si daahfuran oo waafaqsan hab xisaabeedka sharciga waafaqsan u maamusho dakhliga ka soo xirooda kalluumaysiga. D. maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waa inay leeyihiin habka xisaabeedka maamulka maaliyadda oo daahfuran. wax ka beddelka heshiiskan wax lagama bedeli karo ilaa ay ku heshiiyaan dhinacyada heshiiskan. qodobka 8aad muddada heshiiskan waxa uu dhaqan gelayaa ilaa iyo inta ay dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ka gaarayaan heshiis dhammaystiran ee qaybsiga dakhliga ka soo xirooda kalluumaysiga. qodobka 9aad dhaqangalka heshiiskan waxa uu dhaqan gelayaa marka ay wada saxeexaan dhinacyada heshiiska. saxeexa heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu saxeexay mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxa uu kala saxeexay mudane cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha Puntland, mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha Jubbaland, mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfur galbeed, mudane axmed ducaale geele madaxweynaha galmudug, mudane maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabeelle, mudane cabdiraxmaan cumar cismaan guddoomiyaha gobolka banaadir.